Syria goob colaadeed iyo meesha uu ka bilaamayo dagaalka Turkiga iyo Israa'iil. Suuriya waxay isu bedeshay goob dagaal iyo loolan siyaasadeed oo ay kala jiidanayaan Turkiga iyo Israa'iil. Xiisadu af iyo malo way dhaaftay ilaa ay labada dal ku khasbanaadeen inay wada hadallo diblomaasiyadeed ku kulmaan si looga hortago dagaalkadiisa oo ku dhaxmara dhulka Suuriya. Wareegii ugu horeeyay ee wada hadalladaasi waxay ka dhaceen Azerbaijan 9 Abriil 2025 halkaas oo lagu doonayay in lagu dhiso isfahan looga hortago xaaladdu inay sii karto gaadhana kacanka hadal. Nasiib darro kulankaasi natiijo quman kama soo bixin. Xiisada Turkiga iyo Israa'iil ayaa sii cuslaatay markii taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil Hersi Halevi uu 20 Abriil kormeer ku tagay dhulka Suuriya ee Israa'iil xoogga ku haysato isaga oo ay wehelinayaan saraakiil sare. Intii uu socdaalkaasi ku jiray ayuu Halevi ku celiyay qorshaha istiraatiijiyadda Israa'iil ee ahaa in gacanta lagu sii hayo dhulkaas taasoo sii horisay su'aalo badan oo ku saabsan halka uu ku dambeyn doono loolanka Turkiga iyo Israa'iil ee Suuriya gudaheeda ka jira. Himilooyinka isdiidan ee Turkiga iyo Israa'iil labada dal mid walba waxa uu leeyahay ujeedo ka duwan kan hore. Turkigu waxa uu xoogga saaray taageerada maamulka cusub ee Suuriya iyo dhisidda ciidan qaran oo awood leh si dalkaasi u yeesho madax bannaani buuxda. Turkigu waxa uu doonayaa inuu wiiqo saamaynta Kurdida ee waqooyiga iyo bariga Suuriya isla markaana uu dhulka Suuriya ka dhigto gaashaan difaac oo uu Turkigu ku tiirsado halkii uu khatar amni uga imaan lahayd. Waxa kale oo uu Turkigu xoog gelinayaa dib u dhiska Suuriya taasoo fursad dhaqaale oo ballaaran xambaarsan. Haddii xaaladdu degto qaxootiga Suuriya ee ku sugan Turkiga ayaa dib ugu noqon kara dalkooda. Arrintaasi oo yareynaysa culayska siyaasadeed ee saaran xisbiga talada haya ee AKP siina xoojinaysa sumcadiisa gudaha. Sidaa darteed Ankara dadaal weyn ayay ka galaysaa inay Israa'iil faraha kala baxdo arrimaha gudaha ee Suuriya waana xaalad la xiriirta amniga qaranka ee Turkiga. Tel Aviv waxay iigsanaysaa inay Suuriya ka samaysato dhul ballaaran oo ah aag hubka ka caagan gaar ahaanna waxay arrinka ka maaminaysaa xuduudaha Suuriya iyo Lubnaan. Waxay rabtaa in diyaaradaha Israa'iil si xor ah uga duulaan hawada xadkooda. Sidoo kale waxay doonaysaa inay heshiis diblomaasiya la gasho Dimashq si loo sharciyeeyo xaqiiqooyinka ay xoogga ku dhisatay sida in dib loo xariiqo xuduudaha iyo xiriir gaar ah oo ay la yeelato bulshada Duruuska. Intaas waxaa dheer Israa'iil waxay ku tala jirtaa inay ka hortagto in Suuriya martigeliso kooxaha Falastiiniyiinta ah ee ka soo qaxaya dhulkooda. Waxa kale oo ay rabtaa inay yarayso saamaynta Turkiga isla markaana ay xanibto ama caqabad ku noqoto isku xirnaanta dalalka gobolka ee Ankara ay ka shaqaynayso. dalalkaas oo kale ah Ciraaq, Suuriya, Lubnaan iyo Urdun taasoo liddu ku ah danaha Israa'iil. Agabka iyo awoodda labada dal labada dhinac waxay adeegsanayaan xeelado kala duwan oo ay midba kale ku cabsi gelinayso. Turkigu waxa uu adeegsanayaa xiriirkiisa siyaasadeed iyo ciidan. Ankara waxay dhisatay xiriiro saameyn badan leh oo ay la leedahay hoggaanka cusub ee Suuriya. Qayb weyn oo ciidanka Suuriya maanta ah waxay asal ahaan ka soo farcameen ciidanka qaranka Suuriya ee uu Turkigu 2017 sameeyay. Saraakiil Turkimaan ah ayaa xataa ku jira safka sare ee hoggaanka joogitaanka military. Turkigu wuxuu saldhigyo ciidan ku leeyahay waqooyiga Suuriya. Wuxuu qorsheynayaa inuu ballaariyo joogitaankiisa isagoo hub iyo tababar siinaya ciidanka cusub ee Suuriya. Waxa la qorsheynayaa heshiis iskaashi oo difaaca oo dhaxmara Ankara iyo Dimashq. Xeeladaha diblomaasiyadeed Turkigu wuxuu adeegsanayaa xiriirka uu la leeyahay madaxweyne Trump si uu culays ugu saaro Israa'iil. Ankara waxay xitaa diiday in diyaaradii wufuudda Israa'iil ay maraan hawada Turkiga markay ay tagayeen Azerbaijan. Israa'iil ciidanka iyo howlgallada Israa'iil waxay fulisaa duqeymo joogto ah oo ay ku burburiso awoodda military ee Suuriya. Waxay gacanta ku haysaa aag ballaaran oo u dhow buuraha Golan Heights waxayna samaysatay buffer zone oo ah aag amni ah oo 15 kiiloomitir gudaha ugu jira Suuriya. Isticmaalka kaararka qoomiyadaha iyo bulshada Israa'iil waxay adeegsanaysaa qoomiyadaha laga tirada badan yahay sida Kurdida iyo Duruusta si ay u kala jebiso Suuriya isla markaana ay cudud ugu hesho. Netanyahu wuxuu si cad ugu hanjabay in haddii bulshada Duruus ay hal far gaadho uu 5 farood fidinayo. Cadaadiska diblomaasiyadeed waxa uu adeegsanayaa xiriirka uu la leeyahay Washington si cunaqabatayn loogu sii hayo Suuriya isla markaana loo xanibo xiriirka caalamiga ee Dimashq. Waxaa muuqata in Turkigu uu gacanta sare ku leeyahay gudaha Suuriya halka ay Israa'iil tahay qarax meel walba ku dhacaya oo aan lahayn istiraatiijiyad quman. Mustaqbalka dhow koonfurta Suuriya ayaa noqonaysa goobta ugu weyn ee loolanka labada dal taasoo xiisad hor leh ka abuuri doonta gobolka oo dhan. Muxiidiin Cabdi oo juqraafi kala socotaan haddaad nagu cusub tahay fadlan page-ka subscribe saar haddaad nala socotayna like iyo share bay isugu darso u gaar saaxiibo badan. Nabadino.